بسم الله. السلام عليكم. magacaygu waa Axmed Aadan kusoo dhawaada Venus Media. waxaan idin soo gudbin doonaa xikmado iyo oraahyo laga diiwaan geliyay Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil. Islaamku waa caqiido loogu talgalay inay fikradda iyo aragtida bini'aadamka toosiso. aqoonyahanku wuxuu aqoonyahan yahay markuu rabbigiisa yaqaano, aakhirana yaqaano, adduunkana uu isbeddel ka samayn karo. qur'aanka haddii aad akhrido qof rabbigii uu waramayo ayaa tahay, bal qiyaas rabbiga oo kula hadlaya oo ku waramayo. nabadgelyo waxaa ugu fiican nabadgelyada naftaadu ay degan tahay oo ay xasiloon tahay, aan walwal iyo walbahaar kugu dhicin. dhalasho wacan markaan leenahay taasi micnaheedu waa sanad baan xabaash u dhowaaday. taasi ma wax lagu farxaa? jahliga ugu adag ee muslimka haysta maanta waa diintiisa oo uu jaahil ka yahay. in xaafad kasta laga dhiso 7 masaajid oo aan qaarkood cidina ku tukan, waxaa dhaanta adoo dhisa wado dadku maro oo ka gaadhiga wata aanu gaadhigu kaga jabin, ka maskiinka ay lugeynayana aanu ku dhibtoon. haddii aqoonta aad kasbatay aanay isu beddelin habdhaqan, waxba ma dhaantid cajaladaha ay wax ku kaysan yihiin. aqoonta aad kasbatay waa inay ka muuqataa naftaada, dhaqankaaga iyo noloshaada. markaas ay macquul tahay inaad bulshadana aad wax ka beddesho. dadka kuwa ugu hantida badan ayaa ah kuwa ugu hurdada yar. inaad noqoto qof hami leh, han leh, hiigsi leh oo hiraal u muuqdo waa laga maarmaan. haddaad rabto dadka in caqligooda ku aqbalo, waxaa ka horeeya qalbigooda inaad furto. qofkaad qalbigiisa furi kar weydana caqligiisa ma furi karaysid. qalbigan waxaa lagu furaa jacayl, naxariis iyo hadal wanaagsan. hadday jannadu tahay meesha qofku loogu nicmeynayo, cadaabtuna ay tahay meesha qofku lagu ciqaabayo, adduunyaduna waa meesha qudha ama meesha keliya ee laysku imtixaanayo. hadafka weyn ee qofka muslimka ahna waa inuu ilaahay raali ahaanshihiisa gaadho, iyo inuu janno xaqiijiyo siduu u geli lahaa, iyo inuu cadaabka ka badbaado. hadafka kama dambayska ah ee qofka muslimka ahi uu nool yahay waa kaas. nolosha waa halgan. inta halganka lagu jiro, dhib iyo mashaqo iyo mushkilad ayaa imaanaysa. waa in la sabro oo la adkaysto oo la dulqaato, oo yaan lagu talagelin in xalwad laysku siinaayo halganka nolosha. ee qofka ku talgalo inuu dhibaatooyinka u sabro. meesha qiimaha leh ee u baahan inaan u shaqaysano waa aakhiro. intaan ayaan jeclaystay maanta inaan idinla wadaago. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.